السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونرسل داوديال كسور دوادا برنامج كأنه نحن كسور قاعدة دورنا لا يابك الدنيا وسياسي هالجماعية رقعة والأورنجري تين تشكيتي ونرد شيء وضع كجمهورية الديمقراطية كونغو أيها سمية دارن عجيب هو الدنيا دورن سوتشيتي أدوا وكما تين تشكيتي وحاوها وسير قارمها جودها كونغو لحدماتي قرني هراء أصياش وحاو قاستين وهجان قدرك وهنقل تابو ku guultaraystay sanadkii 1980 ayaa madaxweynihii hore wadanka dimuqraadiga Kongo oo waagaas la oran jiray Sara oo madaxweyne ka ahaa Mobutu Sese Seko waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare waxaanu booska hayay ilaa 90kii qarnigii tagay hase yeeshee waxa uu ka soo horjeestay Mobutu waxaanu ka mid noqday hogaamiyayaashii jabhadii la dagaalamayay Mobutu ee aakhirkiina talada kaga tuuray madaxweynihii Mobutu markii mucaaradkii uu watay dalka qabsadeen waxay isku hor yimaadeen saaxiibkii madaxweyne Laurent Kabila oo madaxweyne ka noqday wadanka hadana halkii ayuu ka bilaabay halgankiisii ugu dambeyn markii uu dhintay madaxweyne Kabila 2006 ee Tena Tshisekedi waxa uu aasaasay xisbiga ugu weyn mucaaradka Kongo ee loo yaqaano UDPS waxaana uu tartamay doorashadii wadankaasi ka dhacday 2006 ilaa 2011 hase yeeshee labada doorashaba waa uu ku dhacay isagoo ku dooday in laga shubtay aakhirkii Master Tena Tshisekedi waa xanuunsaday xisbigiisina waxa kala wareegay wiinankiisa Master Felix kaasoo si soo taagay booskii madaxweyne ee aabihii wardayay dardaarankii cajiibka hadaba muxuu ahaa sanadkii 2017 ayaa mar Tena Tshisekedi xaaladiisa caafimaad u muuqatay mid geeri qarka u saaran ayaa waxa uu ku dardaarmay in haddii ay tiisa noqoto aan la aasin ilaa wiilkiisa Felix madaxweyne ka noqdo dalka Kongo hadaba 20 January 2019 ee sanadkan aynu ku jirno ayaa lagu dhawaaqay xisbiga UDPS ee mucaaradka ah inuu doorashadii ku guuleystay xisbigaas oo sharaxna wiilkii uu dhalay Master Tena Tshisekedi ahaana wiilkii uu ku dardaarmay ilaa uu madaxweyne noqday in aan la aasin ugu dambeyntii Tena Tshisekedi ayaa lagu aasay magaalada Kinshasa ee wadanka Kongo isagoo ilaa markii uu dhintay 2017 meydkiisu uu yaalay wadanka Belgiumka oo uu ku geeriyooday intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.